intii uu yaray ilaa uu ka gaaro heerka waxbarashada dugsiga sare. Ayman waxbarashadiisa waxa ay ahayd mid sareyso, waxa uuna ahay mid salaadaha waqtigooda xifdiya, mana garanayn ilaa waxaan ka ahayn adeecida labadiisa waalid ilaa la gaaray waqtigiisa imtixaanka ee dugsiga sare. waalidkiisana waxa uu u ballan qaaday inuu u gadi doono gaari uu asaga leeyahay haddii uu ka mid noqdo dadka ugu sareeyo. Markii imtixaanadii ay dhammaadeen, waxa uu bilaabay safarkiisa internetka. Waxa uu fadhiyey habeen iyo maalin kombiyuutarka hortiisa, waxa uuna kala sheekaysan jiray gabdhaha iyo wiilasha uu saaxiibada leeyahay Facebooka dhexdiisa. intuu ku guda jiray, waxa uu bartay saaxiibo xun, waxa ayna bedeleen nidaamka noloshiisa. waxa uu bilaabay inuu salaada ka habsaamo, kadibna waa uu iska daayay. waxa uu noqday mid aan danaynin labadiisa waalid, aana baari u ahayn. waxa isbedeshay noloshiisa caafimaadkeeda. waxa uu ahaa mid dhafra habeenkii ilaa salaada subax. sidoo kale waxa uu cabi jiray sigaarka. waxa uu kaloo cuni jiray muqaadaraadka qaarkood si uu u tuso saaxiibadiisa in uu yahay wiil khatar ah. waxaasoo dhanna waxa ay ku dhaceen hal bil oo keliya. maalmooyin kadib, waxaa la soo dhejiyey natiijada dugsiga sare. waxa uu galay kaalmaha ugu sareeyo, waxa uuna keenay celcelis ahaan 79 boqolkiiba. guriga ayuu yimid. waxa uu sugay intuu aabihiisa ka soo laabanayo shaqada, asaga oo ka sugayo balantii uu ka qaaday aabihiisa oo ahayd in gaari loo iibin doono. isla maalinkaas aabihii waxa uu ogaaday natiijada wiilkiisa. markii uu guriga ku soo laabtay aabihii, wiilkiisii waxa uu ku qaabilay hal jumlad oo keliya oo ahayd, aaway gaarigii aad iga ballan qaaday. aabihii intuu u dhoola cadeeyey ayuu wiilkiisa hab siiyey, kadibna waxa uu jeebkiisa ka soo baxshay kitaab. waxa uuna ku yidhi, qaado wiilkaygiiyo hadiyadaada. waxa uu ku jawaabay Ayman asaga oo caraysan, kadib dadaalka aan baxshay oo dhan, ma waxaad isiinaysaa hal kitaab? kitaabkii ayuu ku tuuray wejiga aabihiisa. guriga ayuuna ka baxay. inta uusan guriga ka bixin, waxa uu caayay aabihiisa. waxa uu kaloo yidhi, ma ku soo laaban doono gurigan. aabihii waxa uu dhintay isla maalinkaas si kedis ah. isla maalinkii uu ka baxay Ayman guriga, dhowr isbuuc kadib waa uu ka shalaayay Ayman waxa uu sameeyey. waxa uu jaray saaxiibadii xumaa, waxa uuna ku soo laabtay gurigiisa. waxa uuna arkay kitaabkii oo weli sidiisii dhulka ugu tuuran. waxa uu damcay in uu kitaabkii soo qabsado uu akhriyo dhowr aayad. waxa amakaag iyo kedis ku noqotay in uu kitaab ahayn uu yahay hadiyad, dhexdiisana ay ku jirto furihii gaarigii uu aabihiisa u ballan qaaday. waa uu murugooday Ayman. waxa uu jajabiyey kombiyuutarkii, waxa uuna ooyey ooyin daran. waxa ku dhacay shalal ama paralyze. kadib murugadii iyo niyadjabkii ku dhacay, waxa uu ku sameeyey aabihiisa iyo sida dhaqsida leh ee uu u xukumay aabihiisa. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. halaagaygiyey iyo shalaytadeediyey maxaa hebel saaxiib uu dhigtay. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. wuxuu iga leexiyey qur'aanka intuu ii yimid kadib, shaydaanna dadka waxa uu u yahay dayace ama kadiye. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan haddaa ka heshiin muuqaalkan like saar saan u ogaano inta qof ee danaynaysa muuqaalada noocan oo kale ah. taasina waxa ay noo horseedaysaa in aan sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad daawanaysid janaalka Cabdixaliim Cali, fadlan subscribe saar si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeya aan soo dhigi doono. fii amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.